وهبين سقدحا ساعدنا ولبي يتبان كهبينمو sida halkan idinkaga muuqata aabahan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Axmed Culow waxa uu habeen walba quudiya sidoo kale tan uu ka warqabaa xayawaanka nooca eeyaha iyadoo inta badan eeyaha ay dhibaato badan kala kulmaan bulshada Soomaaliyeed sidoo kale tan qaar badan oo kamid ah nafsadooda ay waayaan kuwa badan aad loo dhaawaco asaga waxa uu qaatay wada ka duwan taas waxa uu habeen walba quudiya sidoo kale tan uu ka warqabaa xaaladooda hadii ay ahaan lahayd xaaladooda biyo iyo mid cunaba markaasi in uu habeen walba u keeno digaag iyo sidoo kale quud walba oo eeyaha dabcan ay jecel yihiin sida halkan idin kaga muuqata in kasto ay caawa intooda badan ay maqayeen oo ii sheegay in habeenka gelinkiisii hore ama waqtigii cishaha uu wax badan siiyay haddana caawa waxaan halkan dabcan jooga mid kamid ah iyadoo mid kale tan aan dabcan wadada wax uu ku soo siiyay waa arin u baahan in la sii dhiirigeliyo sidoo kale tan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale dhammaan hay'adaha u dooda ama ka warqaba xuquuqda xayawaanaadka ay dabcan Cali iyo dadka la halmaale ee ka warqaba inta badan xayawaanada dabcan ay u baahan tahay in lagu ogaado sidoo kale tan looga mahad celiyo kaalinta weyn ay bulshada ugu jiraan dabcan klib kooban ayaan ka duubi doonaa Cali asigoo noogu waramaya dabcan dhibaatooyin badan oo ay la kulmeen eeyo oo halkan cunto ku siin jiray iyo runtii waaqica bulshada oo la dhaqanka eeyaha aan ahayn mid aad u sareeyo soo dhawow waa kan Aba Cali Axmed oo dabcan garabkayga taagan Aba Cali habeen walba waxaan arkaa iyadoo saqdhex ay tahay inaad dabcan ka warqabtid xayawaanaadka sida eeyaha oo runtii habeen walba aad maqaaxida wax ugu soo qaadid oo aad siisid taas oo bogaadin mudan maxaa kugu dhaliyay inaad eeyaha aad wax siisid waxaan ugu dhaliyay mas'uuliyadda ugu dhalisay oo bani'aadanimada eeyaha dhib bay qabaan maalinta dhan raacda lagu hayaa dila lagu hayaa marka habeenkii inaan mas'uuliyadooda qaadno intaan ka qabano ayaan go'aan ku qaadan waan ku guuleysanay muddo hal sano ka badan oo wadnaa ilaahayna waa nagu guuleeyay mana qadaan hadda insha Allah laakiin dhibka haysta dadkii iyo carruurtii laga celilayaa oo dilaya ma jirtaa inta aad dabcan aad quudinaysay dhibaatooyin kala kulantay dhowr xabaa la dilay oo dhimatay hal ma laba ma saddex maahan rag iyo badan dhinteen wax dilayeen ma carruurta ma dadka waaweyn dad waxba garan waay amba carruur ama dad waaweyn ahaadaan dad waxba garan waay dadka qaar waxa ma gartaanba amba carruur ahaada amba haweenaado ninkan iyaga masaakiinka oo kula hadlayn ee dilaya waa gartay marka dib male insha Allah waxa soo dhamaan doonaan waqti dhow dhamaanaya marka dadka la diiwaan gelina oo loo sheegaa oo howlgelina aad marka maxaa kugu dhaliyay adiga ka Cali ahaan dameerta ugu dhalisay wallahi dameerta bani'aadanimada ugu dhalisay aad inaan mas'uuliyadda qaado intaan ka qabaran ka qabto dameerta ugu dhalisay waan ku guuleystay ugu dambeyn maxay tahay fariinta u diris bulshada Soomaaliyeed inay nabad gashaan bas inay nabad galiyaan kii asxaan soo fikra asxaan u soo biyo kii wax u qabto kii BC kar biyo hasiyo kii wax si kara hasiyo laakiin sidoo kale inuu nabad galiyo ka helaan sababtoo xayawaan wadanka korkiisa ku nool سأقول له نولي مركب حنان وبهاي هاي هلا دقالة ساسا قدر ما تدك حجرتك هلا دقالة يعني دلكني دبتها كدافان. أدي هذا ما سنتهي.
intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warbixintii aan dabcan ka sameynayna Abba Cali oo ka mid ah dadka ka warqaba xuquuqda xayawaanaadka gaar ahaan eeyaha oo habeen walba halkan ku xanaaneeya ka warqaba cunana ku siiya waxa uuna sheegay in dadka qaarkood aysan ahayn kuwa xilkasa oo ay inta badan dilaan ama ay laayaan qaar kale ayaa hadda imaanaya qaar kale tana wadada ay kusoo jiraan dabcan aad iyo aad maasintaas kusoo gabagabeynaa haddii warbixintan ay kusoo gaarto muuqaalkan like star saaxiibada la wadaag sii share gare salaamu calaykum waraxmatullaahi intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warbixintii aan dabcan ka sameynayna Abba Cali oo ka mid ah dadka ka warqaba xuquuqda xayawaanaadka gaar ahaan eeyaha oo habeen walba halkan ku xanaaneeya ka warqaba cunana ku siiya waxa uuna sheegay in dadka qaarkood aysan ahayn kuwa xilkasa oo ay inta badan dilaan ama ay laayaan qaar kale ayaa hadda imaanaya qaar kale tana wadada ay kusoo jiraan dabcan aad iyo aad maasintaas kusoo gabagabeynaa haddii warbixintan ay kusoo gaarto muuqaalkan like star saaxiibada la wadaag sii share gare salaamu calaykum waraxmatullaahi